maamada soo gashay bareegan ka qabtay bareega waa jiitamay markaas aan ka gooy waa suuntay gaariga bareeman galiyay waxaa loo haystaa maandiriyo cabaal leh waa hada maandiriyo saado cabaankan way iiga fakatay xabadda ama waa lii qalday laga yaabaa inaad horay u maqashay kuwo badan oo ereyadaasi isku difaacaya fagaarahan cadaaladeed balse maanta way ka duwan tahay waxaa halkan taagan eedeysanayaal loo haysto gaadiidkii ciidanka oo si taxadar la'aan ah ay u kaxeeyeen inay ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac culus iyadoo meesha ay ka marneen isticmaalka maandooriye halis ah saddexle xoogga maxamed xuseen isaaq oo ka tirsan ururka 32 ee sancada darawalna ka ahaa mid ka mid ah gaadiidka ciidanka xoogga ayaa lagu eedeynayaa dilka marxuumad maama xakiimo ibraahim xasan kadib markii uu ku dhuftay gaari uu ku waday xawaare xaddhaaf ah xilli ay maraysay agagaarka tarabuunka taariikhdu markay ahayd 10kii bisha 9aad ee sanadkan dhaawacii soo gaaray ayayna u geeriyootay maalintii xigtay iyadoo sidoo kale halkaasi uu ku burburay gaarigii uu waday eedeysanaha oo ciidanka xoogga dalka uu lahaa marxuumadda oo 70 sano jir ahayd ayaa maalintaasi dusha ku waday coos ay ku quudinaysay ari ay lahayd waxaana uu ku doodayaa inuu dadaalay oo uu xakameyn waayey gaariga isla markaana uu gurmad u fidiyey marxuumadda oo uu isbitaal geeyey marka gaariga sidee wax u dhaceen qofka ku dhufatay aniga waxaan ka soo socday wasaaradda gaashaandhigga xaggeeda markaan soo maraayo meesha la yiraahdo tarabuunka gaarigana markaas aan teersi soo geliyay gaariga 25 macnaha ku socdo macnaha muxuu ahaay kiiloomitirkiisa maamada soo gashay bareegan ka qabtay bareega waa jiitamay markaas aan ka gooy waa suuntay gaariga bareeman galiyay waa suuntay baalan ku taagay markii macnaha markaan xaaladu aad ay u xumaatay baalan ku taagay maamada isha gaariga ku dhacday gacantaas ay ka jabtay madaxan xogo taryara ka gaaray waa qaaday wax ila qabta xataa waxa ka jirtay gabar iyo wiil kale baabuurkan saartay waa wadi isbitaalka xooggiisa alxamdulillah rabbil caalamiin iqraayo ma aha yani suuxdaas markaan gurigay ka soo baxay kuma tashan amarkaas eedeysanaha labaad dable xoogga cabdulaahi cabdiraxiin cabdulqaadir oo ka tirsan guutada 23aad ee gungaar ahaana darawal isagana waxaa loo haystaa inuu geystay dhaawac culus iyo burburin hanti ciidan isagoo gaarigii uu waday uu ku dhuftay gaari kale oo uu saarnaa taliyihiisa halkaasi oo dhaawac culus uu ka soo gaaray dhibane dable xoogga ismaaciil colow cali oo saarnaa qaybta dambe ee gaariga taariikhdu markii ahayd 25kii bisha 9aad ee sanadkan waana aagga cali turcaaya xaafadda suuqa xolaha ee degmada Yaqshid xilliga qadaada taagnaa garaam ciidana soo qaaday ha soo baxay waxa ku leeyahay cali turcaaya meel laayo hal qadaa ku dijiyay waa ka dhaqaaqay soo u socday gaariyan kale isgoos ku kulmay gaari awaariis wuxuu maray 20 oo markuu maray gooladu uu soo baxay saadaan uu saxsanay luqa uu soo baxay gaari marka arkay kama bareegiya ku waay bareeg marka ku waay askari walaalkii ay la tirsan xoog dalka Soomaaliyeed gaar ahaan loo Ismaaciil ameesh ku dhaawacmay lugta ka jabtay askari waa qaaday gaariga saarnay waa baxay xir maslaxa isgeeyana isku dhiibay gaariyan oo wado adiga maxaa ku orsiinay oo inta sano maxaa ugu ordiyay ma nidaamka wadooyinka ilaalista انت maxaa u orday oo isaga ku orsiinay orad ma jirin ya orad waxa la ma jirin tali badan gudoomo dhulka miinaata inta ka horaanay la kacday marka la kacday adana gaariina xoog noo soo tartiib oo socday luuqa soo baxnay gaariyan kale isgoos ku filnin amar Allah ku dhacday waxa ilaa iyo qoran ma celin karo adiga arinta maandooriyaha isticmaal awla arin kara waka ما بربرك أو جاري جوارد تقول إيه سوما دلوقتي ما جاري جوارد بربر جاري كلا عودة على اتخاذ الدون تو تيرك عودة تيرك وحيل بدأ وقلة كان قالنا سانجاه جاري أنا ودي سانجاه كبوسمي ما يغمر أشيل جلس باور شيل غمر أقلة بس إيه وكا مركوت ده مركوت أنا وصعده ما يستغفر أنا جاري بريق ريسمي بريق أنا أسكبر وأنا أكواي جاري دربو كله جاري واريح لي على جاذر الناس مسار روا كلي ديار وادا جاري أسوسمي وأوكي بابور تا إسدبود ديش أديك
أنا شركة مركز لو مر أجلس شركة سو أنا وخبرة تماها قاري حولي قالوا وذا ياكو غصبا يقول هذيك مدن قدوم gaari koofir dulcaan waa marka taliyaha u geeyay miska taliyaha gaariidka taliyaha gaaraan saas astaale cilad badan ku jirto inaan ay sameeyaan mas'uuliyadeeda ma qaadi karaan xaalada askari ta amar qaade amarka Ruusiya ku dhaqaaqay wuxuu keemada dushiyaari saarnaade ma jirtaa ay waaye gaariyan moodi kiraade ما يقصنا درون تاعي أنا أفر سنة عيد قال ما يقصنا كنت لو سنة توم بلو هل سنة توم بلو كجرا درون لها ما لقوا قاتلي dhambe maxamed cabdulaahi khaliif ku-xigeenka xeerraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sharaxaya caqabado hadda taagan oo lagala kulmo gaadiidka ciidamada qalabka sida wuxuu ku dooday sida qiraalkiisa hadda la akhriyay ka muuqato inuu ku socday oo baabuurka uu ku waday 30 kilomitir barhabar inuu ku socday 30 kilomitir barhabar waa qof iska guurguuranayo si tartiib ah u socdo maxaa yeelay saacaddu waxay ka bilaabataa 20 40 ku xigto marshada koowaad markaa gelisid sida baabuurka uu isaga wadaayay macnaha markii la fiiriyo nidaamkiisa automatic waa joogtaaba macnaha taas been uu ka sheegay wuxuu ku socday over speed zaid uu ku socday taasa sababtay marka in uu gaariga xakameeyo waayo oo maamadaas uu ku dhufto غير مسؤولnimo uu sameeyayna ka timid mudan gudoomiye badana baabuurta dawladda gaar ahaan baabuurta ciidamada qalabka sida ay isticmaalaan uma hoggaansamaan xeerarka nabadgelyada wadooyinka saddex caqabad ayaa ka jiri jirtay magaalada midda ugu horeysa waxay ahayd inay baabuurta ciidamada ay wataan wadada ku furtaan xabado taasoo ah gaariga ka horeeya ama mootada ka horeysa inay xabad ku ridaan soo wadada uga leexdo baabuurka ka dambeeyana inay xabad ku ridaan soo uga haro taasoo sababi jirtay dhimashooyin tiro badan xafiiska xeeraalinta oo waajibkiisa gudanaya ayaa wacyigelin badan ka sameeyay eedeysanayaashii lagu soo eedeeyay maxkamadda hor keenay qaarkood la xukumay qaarna lagu fuliyay taas mudan gudoomiye waa xalisantay badankeeda hadda laba caqabadood oo soo hartay oo hadda aad u taagan oo gaadiidka ciidamadu ay sameeyaan midda koowaad mudan gudoomiye waxa waaye speedka zaa'idka oo baabuurta lagu wado sida hadda eedeysanaha uu sameeyo kale speedkaas caqabadihiisa waxa ka mid ah inuu qofka baabuurka xakameey karin baabuurkan qofka darawalka ka ah birta qadarta ilaahay waa gooni laakiin birta qofka wado ayaa mas'uul ka ah inuu xakameeyo saasa looga sameeyay break iyo handbrake ba loo sameeyay caqabada ugu badan ee ka dhalata mudan gudoomiye waxay tahay ciidanka u gadaal u saaran xitaa inuu baabuurka markuu speed zaa'id ku socdo oo wax ka hor yimaadaan ay ciidanka xitaa dhaawacay ka soo gaaraan ay ciidanka jajabaan mudan gudoomiye caqabada kale oo ugu dambaysa waxay tahay inay baabuurta ay ka baxaan seedkoodii ay seed kala maraan meeshii la rabay in ayaga lagu daysto oo bajaajlayda ayada daba kacaan oo waxay wadada sunnada ay u furaan ay daba maraan ayagii ayaa waxay sameeyaan yani trespass ay sameeyaan wadada ayaga aysan lahayn mahna wadada kale maraan ayadana caqabado badan ka yimaado mudan gudoomiye waxaan rajayn doonaa insha Allah markii marqaatiyaasha la dhageysto in go'aamada maxkamadda ka soo baxayo ay wax badan u tari doonto in ciidamada ay ku dhaqmaan nabadgelyada wadooyinka xeerarkooda maxkamadda waa maasanta askar goobjoog u ahayd dhacdooyinkan ayay maxkamaddu si markhaati ahaan u dhageysatay iyadoo eedeysanaha labaad dable xooga cabdulaahi cabdiraxiin cabdulqaadir la sheegay inuu isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya xilliga falku uu dhacayay baabuurka noowadiya waxaa ka soo baxanay wasaaradda gaashaandhigga waxaa la soo maray warshadda oo burka yaa la soo maray isbitaalka hooga markaan iritiis soo maraynay meesha waana dalcad baabuurkuna waa socday waxaa marka soo dhaafaynay derbiga oo isbitaalka hooga derbigiis soo dhammaanaynay yaa waxaa jiiro ka soo baxay maamo waxaa ka imaaday dhinacan oo waddadan ku soconmay waddada kale yaa ka soo baxday bajaadlu ku dhagaaray waa sagatay waa ka soo badbaaday labadii wadda dhexdooda istaagday dhanyaa iska fiirisay baabuurkan waxaadaya aragday waxaa gashay aad ka goysid inta ku soo gaarin laba tallaabo marka qaaday in baabuurka koraa ka saarnaa laba tallaabo marka qaaday baabuurkana ka soo dhaxay
baabuurkii maamadii ku dhacay ani break of isku dayay waa xakameeyay waay baabuurkii hooga u socday u maleeyay ani kor ka saarnaayay waa xakameeyay waay baabuurkii ninki kon labaad hadana ku dhacay kon labaad yaa ku dhacay gaariga laba mar ku dhacay maamadii laba jeer ma ku dhacay macnaha laba jeer ku dhacay shaqaabka la sharaxay soo u dhacay marka hore waa ku dhugtay Soomaha ani break of isku dayay tabra u waayay كل ما كتبت ما فيري غاريغا محل اردو سدم اردو انا باور استافا كاها كره كسارنا تاس منك مرشد قال شيء بس كده ده بس انا waxa اردو ما قال marka hore saale ma loo jir ma qamar ay ku wadiin oo shir galay gaariga ma qamar markii ka wadlay sidan xuliga markas u wadi jir ma nankan baawar ku wadayni ma daraw kuma hayn ninka daraawlkiisa baaburka daraawlkiisa waxaa loo diray from Auschwitz saraakiisha kunta oo kala bedelisay ninkaas meesha loo diray ninkan baaburka markaas soo qabsaday ma ahayn miya daraawlkii rasmi daraawlkii baaburkaas daraawlkiisa ma ahayn marka arinta loo haysto Cabdullaahi dhowr jeer ayaan digniino siiyon canaantay gaariga darawalka iyaga ahay dhowr jeer oo si qaldan isagoo ku socdo aan canaantay oon digniisiyon laasaan wax ka bedel ka soo tagtaas taariikhdu markay ahayd 25 bishii 8 2024 waxaa dhacday anigoo laygaga yeeray taliska ururka oo ka dhaqaaqay taliskayga horinta u socda maslax asigoo meel xaafada oo ceel xaraar aaga barxadda lafaha maraayo oo asigana ciidan kale oo meel ii deganay raashin u wado inuu xoogaa asigoo si xawaaro sare ku socdo anigoo u socdo meesha laga yeero taliska oo iga soo dhacay goolad markuu gooladkiiga soo dhacay ilaa amarkii madaxa baawarka markaa isku kala baxay oo wadada wuxuu uga dhiftay lugaha askarta meesha ka raran amarto oo dhacda oo uga soo dhiftay marka askariga lugta uga jaba anagana albaabka aan ku jiray oo uga furmi waayay albaabka kale ka baxa ilaa amarkiis waa arintaas sahanka ee sirdoonka ururka way soo sawireen isla markii oo cadeyntooda way soo qaadeen in macnaha uu qaldan yahay ninkan intaasan ka ogahay iyo in badan oo digniinsi askarigaas waxa kale loo haystaa maandiriyo cabaal leh waa hada maandiriyo saado cabaal ninkan taasana cadayha xashiish daroogada loo yaqaan xashiishka isticmaala wax kale hada darooga ku oga majlis iyo jaadka maxaa qasaar ka dhashay oo gaadiidka xagiisa qasaare waxaa ka dhashay mudan gudoomiye askari lagu magacaabo Ismaaciil Culuw Cali oo ka tirsan horinteyda ayaa lagu uga jabay labada gaadiidna midna waa wajiga hore ka burbura ko asiga waday midka kalena meesha uga dhaco ka burbura baaraha kiiskan uga wakiilka ah hoggaanka sahanka iyo wardoonka ee ciidanka xoogga dalka ayaa garsoorka la wadaagay natiijadii ka soo baxday baaristiisa gudoomiye Soomaaliya gobol baaristeeda marka aragnay qiraarka laga qoray labada eedeysana maxkamadda marka aragnay warqadii eedaha ugu soo eedeeyay marka wax ka weydiiyay eedaha ugu soo eedeeyay gudoomiye Soomaaliya waxay soo baxday in si bareer ah ay u galeen dambiil ugu soo oogay si qeyr mas'uuliyiin u wadeen halka eedeysana kuwan u dheeriyay waxa daroo ilaa dowladda dhexe maxaa bare ودروسها ويستان لبض وحيستان ليسكي بحيان وقان قاديدك وزيادة قاشانيكي ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle maxamed xuseen cumar saney ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha ay ku xukunto ciqaab adag oo tusaale u noqon karta guud ahaan darawallada qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida si loo badbaadiyo nafta shacabka iyo badqabka gaadiidka ciidanka mudana gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha taxadir darrada uu sameeyey waxaa caddeynayo gaariga uu waday maaskarihiisa sida maxkamadda presentation ugu soo hordhignay maaskarihiisa sida u jajabnay ilaa koofariisa maxkamaddu way la aragtay waxaa cadeynaya markay inuu xawaare xad dhaaf ku socday maaskaraha iyo koofaraha gaariga sida ay u jajabeen mudana gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh sidoo kale maxamed xuseen isaaq ibraahim wuxuu ku xadgudbay sidoo kale qodobka 153 ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo ah burburin hanti ciidan mudana gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh xilligaasi wadada waxaa marayay dad tiro badan oo Soomaaliyeed oo ay ku jiri karaan dad dhagoolo ah
dad waayeelo ah caruur yar yar oo wadada la goysiiyo xilliga dugsi quraanka waxa kale oo wadada mari kara arday Soomaaliyeed oo iyagana yar yar ah kama taxadirine wuxuu dalcadda si xawaare ah xad dhaaf uga soo dagay gaariga uu wada asigoo xad dhaaf u wado ayuu dalcadda ka soo dagay sidoo kale eedeysanuhu wuxuu jabiyay qodobka 74 ee xeerka nabadgelyada wadooyinka oo wuxuu ku socday xawaare zaa'ida sidoo kale mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysana maxamed xuseen isaaq ibraahim wuxuu jabiyay haddana qodobka 75 ee xeerka nabadgelyada wadooyinka kaasoo dhahayo kaasoo ka hadlayo waa in la yareeyaa xawaaraha ama orodka waduhu waa inuu yareeyaa xilliga uu marayo isgoosyada dalcadaha iyo buundooyinka marka hadda wuxuu ka soo tagtay dalcadda oo wasaaradda gaashaandhigga oo tarbuunka ayuu ka soo degtay labadaasi qodob 74 75 xeerka nabadgelyada wadooyinkana wuu ku xadgudbay eedeysana maxamed xuseen isaaq ibraahim mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh sida aan maxkamadda horteeda ka sheegay 1985 ilaa 87 ayuu soo shaqeeyay waa muddo 40 sano ka hor ah ama 38 39 sano ka hor ah hadda wuxuu ciidanka ka mid yahay 15 sano mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maadaama uusan ka fikirin wadadaasi inay mari karaan arday yar yar maadaama uusan ka fikirin ee wadadaasi mari karaan dad dhagoolo ah maadaama uusan ka fikirin wadadaasi inay mari karaan dad xataa iska waalan maadaama uusan ka fikirin inay wadadaasi mari karaan dad waayeelo ah sida uu haddaba gaariga ugu dilay allah u naxariistee maamo xakiimo ibraahim xasan oo 70 jir ah sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in maxamed xuseen isaaq ibraahim maxkamaddu ay ku hesho qodobadii aan ku soo eedeynay eedeysana cabdullaahi cabdiraxiin cabdiqaadir xafiiska hareerintu wuxuu ku soo eedeeyey qodobada kale ah 440 baaragraaf 2 wuxuu dhaawac adag u geystay dhiban lagu magacaabo Ismaaciil Culuw Cali eedeysanaha sidoo kale waxaan ku soo eedeynay qodobka 412 413 oo iyaguna ka hadlayo daraagiska iyo muqaadaraadka sidoo kale waxaan ku soo eedeynay qodobka 153 oo ah burburin hanti ciidan mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysana cabdullaahi cabdiraxiin cabdiqaadir wuxuu si bareera oo gardarro ah oo weliba taliyo horankiisii oo ah sarkaalka xukumayo gaariga la socdo ayuu wuxuu ka dabageeyey gaari kabacdi wuxuu sameeyey intuu ka haray oo waddo kale ka baxay ayuu wuxuu dhinac kaga dhiftay gaarigii taliyo horinka saaray waxaana ku dhaawacmay dhibano lagu magacaabo Ismaaciil Culuw Cali oo hadda jaban isbitaalna yaalo mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xilliga falkaasi uu galayay waxay ahayd taariikhdu 25 bishii 9aad 2024 mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xilliga falku dhacay waa 6 saac oo duhurnimo waa xilliga ardada iyo iskuulada laga soo daayo carruurta yararka dugsiga quraanka laga soo daayo mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh wuxuu inta badan oo dhowr jeer hal iyo laba aan ahayn sida taliyo horinkiisa uu sheegay wuxuu sameeyaa inuu shilalka ay u badan yahay taliyo horinkiisii oo la gaarigan tartiib u wad ayuu inta ka diido ka haro wadada dhinac kale ka maray saas ayuuna shilka u geystay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maadaama aan caddeynay in dembi dhacay eedeysanayaashuna ay yihiin dadka gala dembigaasi waafaqsan 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed eedeysanayaasha maxamed xuseen isaaq ibraahim iyo eedeysana cabdullaahi cabdiraxiin cabdiqaadir waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in ay ku qaado qodobadii aan ku soo kala eedeynay si ay tusaale ugu noqoto ciidamada qalabka sida ee magaalada Muqdisho wadooyinka gaadiidka ciidanka wada kuwaas oo inta badan aan waxba micna aysan ka lahayn shacabka Soomaaliyeed gaadiidkana loo wado xawaare zaa'ida mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh tusaale inay u naqataarnaa mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maxkamadda waxaan ka codsanaynaa ugu dambeyn in qodobada aan ku soo kala eedeysanayaasha maxkamaddu ay ku hesho maxkamadduna waa mahadsantahay qareenka eedeysanayaasha ayaa dhankiisa maxkamadda ka codsaday in muwakkiliintiisa laga bari yeelo ciqaabta sharci
lana saaro bixinta magta dhibaatadii ay geysteen. mudane gudoomiye eedeysanaha koowaad oo ah maxamed xuseen isaaq ibraahim waxaa lagu soo eedeeyey qodobka 434 iyo qodobka 156. mudane gudoomiye qodobka 434 wuxuu ka hadlayaa dil bareer ah ulakac ah mubaashar ah. waxaa loo kala qaadaa dilka labo dil oo mubaashar ah qatlul mubaashir iyo qatl ghayr mubaashir lah labadaasaa loo kala qaadaa. xafiiska xalaalaha guud wuxuu ku soo eedeeyey qodobka 434 oo ah qatl oo mubaashar ah oo lakac ah qasad ah. mudane gudoomiye qodobka 434 ma aha qodob mustaqil ah kaligiisa meel istaagaya ma aha waa qodob caddeynaya qof allaale qofkii qof dila in la dilo ayuu caddeynayaa. mana jirto wax macnaha oo ah dil oo mubaashar ah. muwakkilkay wuxuu caddeeyey inuu baawur waday baawurkina uu socday amba xawaaraha ku socdo amba xawaara la'aan ha socdo in marxuumadda dhimatay ee jidka si kadis ay ku soo gashay oo ay sheegeen markhaatiyaalkiina ay sheegeen si kadis inay ku soo gashay markaasna gaarigii amba xawaar ha ku socdo amba xawaare ka yar ha ku socdee dhibka meesha ka dhacay inuusan ahayn qatle oo mubaashar ah oo ahaa qatle oo baawurkaas daaba inay dishay qofkaas. dilka labaa loo kala qaada dil mubaashara dil ghayr mubaashara. dilkan ghayr mubaashara waay maxaa yeelay xabadna laguma dhufanin wax kaloo wax dilin looguma dhufanin. shareecada waxaa ku cad walaa qisaasa ilaa fi lcamdi. dilka camdiga ah oo 434 oo caddeynaya waa dilka kaska ah waay. dilka kaska ene waxaa laga rabaa qasdul ficl qofka inuu ficilka u qasdo oo asiga amba qora ha noqdo amba dhagax ha noqdo amba wax kale ha noqdee qofka inuu u qasto. wax qasad ah meesha jiran ma jirto. ninkan baawuro waday maamadan waa socota qof waayeelay ahaaday jidkii soo gashay baawurkiyaa dardare. eedaysana maxkamadda wuxuu u sheegay markii waa ka jaray dhankii aan u jaray ay aaday haddana waa ka sii jaray hadda dhan kale soo aaday meeshiina waa ku dhaawacantay dhaawacaasna waxaa ka dhashay dhimasho ayaa ka dhalatay. eelaa la dhahaa qodob ayaa caddeynayo oo ah 445 waa dilka maxaa la dhahaa shilka ah ayay ku caddahay. muwakkilkeena qalad ma laha maamada dhimatana qalad ma laha waxaa qaladka iska leh maamada dadkeeda qaladka iska leh. maamadaas waayeelka ah inaa magaalada lagu soo dhexdeeyo magaaladan oo inta baawuur iyo inta mooto iyo inta waxoo socdo ee tirada ka bateen maamo waayeel oo 80 jir ah inaa laamiyaas lagu soo deeyo qaladkaas iyo mas-uuliyad darradaas iyo taqsiir macnaha ka gaabiskaas waxaa qaadanayo dadkii ayada maxaa la dhahay oo gacan qabaskeeda lahay aaw dadkii maxaa wartaas waayeesha laamiya ugu soo deeyeen in la weydiiyo waayo ma aha nin gudanayo waajibaadkiisa oo baawurkiisa wato in la yidhaahdo maxaa la dhahay waxaasaa dhaceen waa qalad. maamada iyo baawurka haddii had waa laga dooda la dhaha maamadu maa saxneed baawurka maa saxnayo horta waxay u baahan tahay in taraafika la keeno meesha la tago la fiiriyo ma baawurkaa qaldanaayo maamadu maa qaldan horta in la kala fiiriyo. markhaatiyaala la soo dhoobay ninkii asaaba qiraale markhaati maxaa lagu keena markhaati maba loo baahno ninkii asaaba dhahoy gaaraa waday maamaa soo gashay maamadin waa dhaawacaa gaar dhaawacina waa u dhimatay waa iska caddahay markhaatiyaalaa la keenay. laakiin maamadan qasadna kuma dhiman dadkii ayada xanaanadeeda lahaayaa laamii ku soo fasaxay baawurtii ma iska fiirinin waa iska socotay qalad ma leh wax qalad ay leedaha ma leh. ninkan baawurku watan wax qalad leeyahay ma leh maxaa yeele baawur ma aha qof maaha baawur waa shay ka baxsan fariina la waayi karaa wax baa helaawi karo waa wax qasadka ka baxsan waayo meeshii qofaa ku dhintay. xafiiska xalaalaha guud waxay ahayd inay ku soo eedayaan qodobka 445 inay ku soo eedayaan ay horto maba ahayn 434 inay ku soo eedayaan wax la yaabo waay cajiib waay wallahi. cabdiraxiin cabdulqaadir wuxuu geystay dhaawac si waafaqsan qodobka 440 waxaa kale lagu soo eeday 412 waxaa lagu soo eeday 413 waxaa lagu soo eeday inuu xashiish cabo inuu cabtoo yahay inuu wax sameeyo. nin cabtoo ah la og yahay oo xashiish cabo ninkii baawur ku dhiibi ka war aaw taliyii baawur ku dhiibi maxaa u qaadaa mas-uuliyadda meesha taqsiir wuxuu ku gaabiyey uu ka gabood falay nin cabtooyina baawur loo dhiibo ayagaaba sheegay markhaatiyaalkii meesha kan waxay cabtooy waay nin cabtooyina baawur gacanta laga saaro la baawurkan wad taasaa ahayd maxaa la dhahay
mas-uuliyadda takhsiiriya la yidhaha waxaa ka dhalanayo ka gaaban mas-uuliyad taliyaha la raba inuu ciqaabta qaato mudane guddoomiye asigana waa aqirsan yahay inuu dhaawac geystay waxaan rabaa dhaawac uu geystay oo keliya in lagu qaado mudane guddoomiye xafiiska xalaalaha guud waxaa la rabay si waafaqsan qodobka 110 inuu soo caddeeyo faldambiid inuu dhacay faldambiidka dhacan uu yahay dadkan ay geysteen eed iyo qofkin inuu isu waafajiyo meeshan waxaa ka cad inuu wixii dhan iswaafaqsaneen nin shil wax ku geysta wax lagu soo eeday 434 mudane guddoomiye waxaan rabaa inaad go'aan ka gaartid aan ku qaadid si waafaqsan qodobka 122 maadaama muwakkiliinteed ay ahaayeen dad gudunaya waajibaadka dowladdan ay ku aamintay in baawur ay wadaan baawurna sidiisa qofka ma wada shila ay maakar wax walba ay maakar magaaladan waxa waaye magaalo oo amnigeeda oo allo sahal u yahay baawurta ciidamadan waxaan naqaanaa sidoo zaa'id ay ku soo xawaare ku socdaan baawurta ciidamada intooda badan waxay ku socdaan xawaare ku socdaan xawaarahaas markii baaran waxa u mulay magaalada qaraxyo iyo bilaay wax badan ka jiro inay ka cararayaan miino hadda ku istaagto un ciyow ka gudub saasa u qaata aniga baawurta markay arkay xawaarahooda iyo orodkooda haddii nafteeda taas qalad ay tahay waxaa la rabaa in laga wacyigeliyo loo sheego baawurta in tartiib loo wado hadda mana aha hadda in laga doodo maxaa la maamada qaldaneed iyo kana qaldanaa iyo hebelaa soo gale annaga hadda howl taraafika ma naqaano taraafika lama keeno hadda taraafika nooma sharxa hadda waxaan rabaa muwakkiliinteeda in la bari yeelo ninkaasna diyadii laga qaado ninkaasna dhibka uu geystay in asigana laga qaado wixii ciqaabeen in laga fududeeyo maxkamadduna waa mahadsantahay maxaa kaaga baxay dood darta maxkamaddana maxaa ka codsanaya aniga sideeda macnaha waxa waaye gaarigaas tartiiba u waday maamadaas ilaahay igu sababay alxamdulillahi rabbil caalamiin dhaawac ahaan xaggaan geeyey alxamdulillahi rabbil caalamiin muxuu ahay waa u dhimatay marka maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaa in macnaha xorriyadeeda ay siido intaasoo sanan gaar u soo waday dowladda wax dembi aan geystay ma lahan waxay igula talisana diyaaraan wahay aniga ciqaabta ay siisana diyaaraan wahay inay qaato maxkamadda maxaa ka codsanaya maxaana ku baxay horta qofkaas gaarigii shilku kam waaye waxa ilaaha kuu qoramaad ugefayso wixiina kasuu mu dhicin inaa kasuu geysna muu soo bixin waxa ilaahay uu sababay sababta ilaahay maanta cid celin karta male waxaa ka codsan lahaa maxkamadda ciidan qalabka sido ciqaabta inay ii fudayso oo shaqada qalabka waajibaabkii taagan in hore usii galo ugu dambeyn gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa fadhigan soo xiray fadhigu waa noo xiran yahay cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho